marna lagama yaabo marna ma sugayno haddii Soomaali hadday doorashada Garbaharey ka dhici weydo waxaa soo wadaynaa barnaamij la carfariiso anagan carfariiso balkii soo baxo fariiso adigan arwa kaasa madaxweynihii soo baxo oo Garbaharey doorashada ay ka qaybgal asnaha fariistaan aragne ugaaska guud ee beesha Sadadaarood ayaa maanta kulan isxog waraysi ah Garbaharey kula qaatay odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka iyo maamulka magaalada Garbaharey waxaana si qoto dheer uga dhageystay bulshada deegaanka iyo maamulka magaalada sida ay uga go'an tahay ka qaybgalka doorashada la filayo inay ka dhacdo magaalada Garbaharey. dawladdu waa soo dhaweynayna ra'iisul wasaaraha waa soo dhaweynayna dawladda goboleedka waa soo dhaweynayna nin kasta oo na quseeyo waa soo dhaweynayna waxaan rabnaa doorashadii wali waa u taaganne waqtigeediina uu soo dhamaaday 15 bari oo lagu daray ilseegahay ka hor baan rabnaa doorashadii in loo keeno waxa ka sooyinaa waa guddiga doorashada heer federaal iyo heer siidbo guddiga fiidiya siid baa ka sooyinaa waxa ka sooyinaa ra'iisul wasaaraha hadda annaga daba cadeeyana intaan qaaqdin hadalkanaga waad wada maqlaysaan daba cadeeyay baan nahay qaaqyaanaan diin Soomaali baan jecelnahay dawladnimo baan jecelnahay wadaninimo baan jecelnahay intaas aan anagu hortayaan ku salaysana taas waa taa daraja jamhuuriyadda federaalka annaga ma ogin waxaad soo wada laakiin waxaan ka filaynaa wanaag iyo ballantii ugaaskanaga aad la soo gashay maanta in kastoo tarax tagi lahayn haddana waxaan fiirinaynaa ugaaskii baan la joognaayo cidna ma qaniinayna kaliya waxaan rabnaa mowqifkanaga iyo aragtida aan qabno inaan soo dayno annaga reer Garbaharey haddaana ay reer gobolka Gado annagoo Soomaali oo qabiil reer Rebel lahayn waxaan diyaar u nahay 17 September ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay cid walba oo soo diraysa ku qotonto 17 September dib u xasuus guddi baan dirnay annaga suuga iskula hadalnay waxaan u diraynaa guddi xaqiiqa raadina waxaan u aragnaa inay tahay u shaxashka ku dhufo in annaga nala ruuxayo in annaga nala maxay ta gardareysanayo in annaga wax kale nala ka raadinayo haddaan nahay gobolka Gado waxaan ku baaqaynaa beesha caalamka daneeyayaasha Soomaaliya inta doorashada wada inay halkaan yimaadaan doorashadii waa diyaar inay doorashadii gobolka Gado yimaadaan roob la waad noo timid qarankaadna matashaa xibnihii qaranka u sareeyay baa tahay doorashada daadahaynahayay Gado inay nabad tahay doorasho u diyaarsan tahay deegaankeedii waad soo aragtay dadkeedii waad soo aragtay amnigeedii iyo nabadeeda waad soo aragtay markii subaxii aan ku ambabixinaynay su'aashii aadna tiri ma hilmaantay 24 saac Gado joogay ayaan seexdo gamay ee waa in gabarna layga siiyo gurina aan ka dhisto waxaan u malaynayaa taas waad hilmaantay haddana waxa ka soo yeerahaya agagaarkaaga Gado nabad maaha doorasho lagu ma qaban karo xaqiiqa raadin baan soo diraynaa war xaqiiq Ilaahay baa haya inuu la qaban karo guddigii maamul goboleedyada ka socday ay yimaadeen oo ay xaqiijiyeen waxa ka dhex jira Kismaayo Garbaharey la ogsoon yahay ra'iisul xogaal ka yahay in la yiraahdo waxaan soo diri doonaa guddi saacadii ugu dambeysay oo doorashadu waxaan aaminsanahay inaanan u qalmin wax noo qaatamanaysan ahayn waxaan rabnaa marka bareeraha anaga maanta inaan cadeysano aan la wadaagno bulshada caalamka iyo tan Soomaaliyeedba waxa weeyo gobolka Gado waxa ku nool dad lagu qiyaasay 2 milyan oo qof oo Soomaali ah waxay xaq u leeyihiin waxay gaalgacyo xaq u leedahay waxay xaq u leeyihiin waxay Baraawo xaq u leedahay waxay xaq u leeyihiin waxay Muqdisho xaq u leedahay sabab ka takoori karto oo ka bedeli karto oo garan karno ma jirto maadaama marka sabab naga takoori karto aysan jirin maadaama ra'iisul wasaaraha uu yahay ninkii hogaaminaya doorashada ee dadkaan hogaanka iyo garsoorka u ahaa maadaama xafiiska warkaas uu ka soo yeeray asaga uu yahay waxaan leenahay ra'iisul wasaare warkaas nama qabto waxaan ka rabnaa sanaadiiqda inaad soo rarto dadkan waxay ku qanci karaan sanaadiiqdii bilis wax in la soo raro guddiga doorashadan uu soo istaagay Garbaharey u balajaas iyo raali gelina aad ka bixis arrinta ayada adiga ra'iisul wasaaraha arrintaas u xil saarnaana aad imaado Garbaharey soo dhex istaagto doorashadan adiga furto hoolalkii baa la diyaariyay ciidamada amniga ugaaska guud ee beesha Sade ugaas Maxamed ugaas Xaashi ayaa markii uu dhageystay talooyinka bulshada deegaanka waxa uu uga warbixiyay safarkiisii Muqdisho iyo kulamo uu la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble
saa u ogaade wax qof gooni meel uu la aadi karo iyo wax qof gooni ah uu gobol jeeb gashan karo waa ka weyn tahay xaajada maanta taala waa wax qaranka Soomaaliyeed uu gaaray adduunkana goobjoog uu ka ahaa inta haddaan ka gudbo waxaad ogsoontihiin ra'iisul wasaaraha qaranka doorashada asaga ayaa loo dhiibay hadday ceeb imaadana asagay saaran tahay dhibteeduna waa wax Soomaaliya oo dhan wada gaarahay hadday ammaan imaadana ammaanteedu leeyahay waana wax Soomaaliya oo dhan wada gaarahay inta haddaan ka gudbo ra'iisul wasaaraha qaranka maalin dhan buu waqti fiican yuusiyay wafdi aan anigu hogaaminayay oo gobolkan Gada ka socday oo u tagay wafdigaas ayada ahna wada hadalkii aan wada hadalnay ayadoo waqti dheer hadda fadhideen waqtiguna kulul yahay waqtiga salaadana ay taagan tahay waxaan idinkugu soo koobahayaa wax allaala iyo waxaad adunku halkaan ka sheegateen oo dhan waxaan ka tagnay ma aysan jirin inta markii laga gudbo oo waxaanu dhaafnay ayna jirin hadday abaar tahay iyo hadday doorasho ahayd labadaba waxaan rabaa marka inaan ku soo koobo su'aal aad halkaan iga weydiiseen oo ra'iisul wasaarihi wixii aan ku kala tagnay maxaa ka haysaa waa qodob waxa kale oo aan rabaa inaan ku soo koobo ra'iisul wasaaraha wixii aan ku soo dardaaranay inta labadaas qodob joogsi xariiq ah oo hoosta aan ka xariiqayo yaan ka dhigayaa ra'iisul wasaaraha qaranka in doorashadii laba goob dagaaneed oo dawlad goboleedyada ay maanta dhamaad yihiin Gadana aan laga qabanin arintaas ayada ah yaa ummadiina ka taagan tahay annaguna aan ka soconnaa qodobkaas ayada ahaan ka jawaabahaya ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri jawaabtiisa inaan idin siiyo ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri marka ugu horeysa waxa la gaaray wax qof uu gaaray maahane waa wax qaranka uu gaaray ummadda Soomaaliyeed ay gaartay anna ma bedeli karo cid kalena ma bedeli karto doorashada Soomaaliyeed oo la qabanayo oo qayb ay ka tahay gobolka Gado oo ugu weyn gobolada Soomaaliya ugu weyn way ka dhacaysaa boqolkiiba boqol bay ka dhacaysaa sidaas ayada ah baa ra'iisul wasaaraha yaa jawaabtaas ayada ay noqotay waan ku mahadinayaa way soo baahan tahay Soomaaliya manni dad laga gudbi karo Soomaaliya magac baan ku leenahay halkan waxay kaga duwanta Soomaaliya madaxweynihii Soomaaliya ayaa ku duugan habaarkii Soomaaliya ku dhacay oo hore ugu dhacay mid ka daran baa dhici dad manni laga gudbi karo waxa aaminsan qalbigooda ka saareen madaxweynaha magac ku leh annaga dhan baa magac ku leh taariikhda dhan baa lagu leeyahay dalka markuu burburay Soomaali meesha isku tagtay aad ogeydeen markuu dalka burburay Soomaali qabiil baa isku tagtay waa nagala fursan waay waa nagala tagi waay haddana ma filayo dad shakhsiyaad inay naga tagi karaan qalbigiina waxaad u sheegtaan halkaan magac bay leedahay magac labaad bay leedahay dalka Soomaaliya laba xuduud oo dawlad goboleedsi waxaan leenahay intaas oo dawladaha Kenya iyo Ethiopia